guddiga gurmadka dadkii ku waxyeeloobay qaraxii muqdisho ka dhacay ee degmada Buurtinle ayaa lacag gaaraysa 10,000 oo dollar oo ay ka soo ururiyeen shacabka degmada waxa ay ku wareejiyeen guddiga gurmadka ee gobolka Nugaal wariyahayaga Maxamed Maxamuud Xaliye ayaa ka waramaya waxay qayb ka tahay kaalmada loogu gargaarayo rayidkii waxyeeladu ka soo gaartay qaraxii 14 bishan ka dhacay Muqdisho waxa soo ururiyay dhalinyarada degmada Buurtinle ee gobolka Nugaal 10,000 oo dollar ayaa cadadkeedu ahaa kaalmadan lacagta ah oo ururka dhalinyarada Hiil Wadan ee Buurtinle iyo maamulka degmadaasi ay si wada jir ah ugu wareejiyeen guddiga maamulka gobolka Nugaal u xilsaaray ururinta deeqaha lagu caawinayo dhibanayaasha qaraxii Soobe gudoomiyaha dhalinyarada Hiil Wadan ee dhaqaalahan soo ururiyay ayaa guddiga uga warramay qaabka ay ugu suurta gashay inay lacagtan soo ururiyaan walaalayaal waxaan wadnaa deeq lacageed oo ay bixiyeen bulshaweynta reer Buurtinle oo hormuud u ahaa gudoomiyaha degmada Buurtinle haatanna uu goobjoog ka yahay gudoomiyuhu dhalinyarada reer Buurtinle waxay isku xil saareen inay ururiyaan deeq lacageed ayagoo qaadanaya amarkii gudoomiyaha degmada amarkii gudoomiyaha gobolka iyo guddiga gurmad qaran ee heer gobol oo Sheekh Maxamuud uu gudoomiye u yahay gudoomiyaha degmada Buurtinle Maxamed Maxamuud Buurdibe ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay doorka muhiimka ah ee ay howlaha gargaarka ka qaateen bulshada degmadu ruuxantii anagoo ka jawaabayna baaqi madaxweynaha Puntland baaqi wasiirka arrimaha gudaha baaqi gudoomiyuhu gobolka iyo dhammaan guddigii gurmadka heer Nugaaleed waxaanu isku tashanay runtii anagoo reer Buurtinle ah inaanu ururino taakulo aan ugu gurmanayno walaalaha ayaga dhibaatada soo gaadhay run ahaantii waxa aan u mahadcelinayaa guud ahaan shacabka reer Buurtinle oo runtii 4 maalmood gudahood ku bixiyay lacag 10,000 oo dollar ah agaasima ku-xigeenka TV-ga iyo raadiyaha dawladda Puntland Daahir Cabdulqaadir Axmed ayaa maamulka degmada Buurtinle iyo ururka dhalinyarada degmadaasi Hiil Walaal ka gudoomay shahado sharaf ay TV-ga ku maamuuseen waxaana sidoo kale agaasimuhu u mahadceliyay dadweynaha Buurtinle oo uu sheegay inay howlaha gargaarka kaalintii ugu weyneed ka qaateen marka loo barbardhigo degmooyinka kale ee la midka ah runtii waxa farxad maanta ii ah oo aan rabaa inaan qoro lacagta dawladda Mareykanku ay bixisay iyo lacagta gobolka Nugaal ayaa ururisay waxa badan lacagta gobolka Nugaal laga ururiyay oo aan maanta goobjoog u nahay degmada Buurtinle lacagta ay wareejinayso runtii waan hubaa dad niyad haya wanaagsan walaalnimo ehelnimo isu gurmasho in ay muujiyeen dhammaan shacabka Puntland waxaan filayaa dhammaan dawladaha caalamka lacagta ay bixiyeen marka la isu wada geeyo ama dawooyinka ay bixiyaan waxa ka badnayd midda Puntland ay bixisay runtii waxay taasina tusaysaa walaalnimada ehelnimada dareenka Soomaalinimo ee walaalada iyo dhibka gaaray aanu ka damqanayno ummadda Muqdisho ama koonfurta Soomaaliya waxaan leeyahay aynu xanaaqno aynu caroono aynu la dagaalanno nimanka kan shayaadiinta ah aynu la dirirno waxaan aad iyo aad u mahadcelinayaa shacab weynaha degmada Buurtinle ee gobolka Nugaal oo ka jawaabay baaqi 16 bishii Oktoobar gobolka Nugaal aan kaga dhawaaqay dadka in loo gurmado Maxamed Maxamuud Xaliye Puntland TV Garowe.